kasoo hadlayo waa tagi kartiin waa arki kartiin wuxuu yiri wiilkayga maanta heer wuxuu taagan yahay aktarada qaar waxaa la leeyahay kiponats waxa way macnaha aktarada ciyaalkooda laakiin cunugayga lama dhihin aktarka ciyaal cunugiisa waxaa la yiri the big director Aryan Khan aniga marka Badsha of Bollywood one good view yiri السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتيدا دمان سوماليين مسلمين تقول دمان ميل والبا جوجتان فانسكيغا waxaa idin leeyahay bashbash barwaaqo umri dheer iyo cibaado suuban dhamaanteen ilaahana wada siiyo inta xanuunsan rabbi oo xanuunka ka dulqaad inta dhibana ilaahu dhibkooda dheef ugu bedel inta dhimatayna ilaahu u naxariiso adiga arxamar raaximiin ah gifkeena iyo geerideyna rabbi oo ha kulmin aamintana waa dhankiina asxaabay wa salaamantiin waa markale macallin JK iyo sheekayar official channelkiinan idinkaga soo adeega dhankan ee Bollywoodka okay maxaa ka cusub marka Bollywoodka waxa way horta qof walbo Soomaalidu waxay tiraahdaa hawar walbo xarkay dhashay xaayo leedahay Shahrukh Khan oo afka aad u furtay markii wiilkiisa NDTV ay siisay in uu yahay director jira in uu yahay ninka ku guuleysta sanadkan directornimada oo waliba over macnaa in dalabaad ay u keentay okay waa sax horta qof walbo ubadkiisa in horumar uu gaaro waa la jecel yahay laakiin xogaa waxaa jirto waxyaabo ka badbadis ah in Aryan Khan horta mid bulshada isku mid आर्यन खान को एनडीटीवी अवार्ड मिलने के बाद bulshada oo dhan hal mid waa isku wada amaantay oo waa isku raacday mid ugu horeyso in uusan hadal badnayn hadii la yiraahdo media iyo hadii la yiraahdo in masraxaba haduu joogo sida uma hadal badna toos wuxuu abaarayaa halkii hadalka loogu talagalay amaba asal uu la golleeyahay iyo haddii shaqo loo dhaqaaqo in shaqadiisa ay tahay si toos ah in uu shaqadiisa u dhameysto kadib wixii xal ah ay isla fiiriyaan asaga iyo directorada kale oo la shaqeeyaan okay DN waxay siisay ninkan in uu yahay directorka ugu fiican overay u keentay lacag bay keentay laakiin waxa la yiri Netflix waa shirkadda xogaa yar maanta la isleeyahay aad ay awood badan tahay reer galbeedkana ay leeyihiin meel walbana ay rug ku leedahay heerkan maanta ayada ayaa gaarsiisay Rachel wuu ku soo caanbaxay aabihiisa iskale waa sax laakiin markaa tahay director ay ku qaadanayso adiga aad sheekadaada macnaa Netflix aad ka gadaysid waxay leedahay macnaa adiga xaquuq ay ku siinayso oo yar sheekada laga la wareegay copyright-na ay tahay wixii ka soo baxa ayada ay leedahay adiga director aad tahay fiigaaga aad fiirinaysid laakiin ninkan waxaa lagu yiri wuxuu oo heerkan ku gaaray Rachel waa shirkadda aabiisa uu ku bilaabay filimkan Bats of Bollywood inuu ku sameeyo shirkadda way cajibisay way qaadatay waxay ka gadatay sheekada 90 karoor ay sheekada ka bixisay asaga fiigiisa iyo wixiisa aysan ku jirin waa macnaha sheeka gadantay waxa lagu leeyahay sheekadaas in ka badan waxa lagu sameeyay wadamada kale indii kaligeeda ma aysan ka gadmin meel walba dunida reer galbeedka siiba waa ay ka gadantay marka Shahrukh Khan marka wiilkiisa sidaas loo amaanay asagana amaanu la dul dhacay wuxuu yiri amaantan
aniga maanta waxaan u soo istaagay in aan amaano wiilkayga xaq ayuu u heshay. wiilkayga waxaan iri aniga isoo raac actor noqo, wuu iga diiday. wuxuu yiri aniga waxaan rabaa adiga aad shaqada aad haysid mid ka duwan inaan qabto, aqoon ii gaara inaan samaysto. wiilkayga wuu samaystay aqoon u gaara, directornimadiina wuu ku guulaystay, laakiin guushaas aniga ma lihi uu yiri. Gooriqaan ayaa iskale, sababtoo ah waxbarashada haddii la dhaho waa dhaxadka hooyada waa sax, ma diidani. waxyaabo badan ayuu soo tiriyey, wuxuu ku soo daray qur'aanka in ay ayada bartay. hadduu dhihi lahaa shaaruqaan aniga ayaa bari wiilkayga, macquul asaga shiicaba ahaadee, laakiin shiicada qur'aanka way akhrisaa, way taqaanaa. laakiin Gooriqaan yay tahay? waa hindi, waa budist, sax. siday marka qofka budistaha oo qur'aanka islaamka ubadkeeda ay u bari kartaa? duqa meeshuu ku dhacay waa midaas. wuxuu yiri wax walbo Gooriqaan ayaa bartay, xataa qur'aanka 114. mar Gooriqaan la weydiinayay, waxay tiri aniga ilmeyga xataa meesha ay dugsiga ku dhigteen, amaba macnaha guriga ahaado ama meel kale ahaado, aniga ma ogi. marka dadka ilaala aan lagu dirsanin waaye. shaaruqaan midna waa lagu taageeray, midna in beentiisa ay tahay bannaankay taallaa. hooyada waa sax, guriga ayadaa hayso, ilmaha ayadaa wax barto. horumarka ilmaha hadday gaaraan badiba hooyada ayaa gaarsiin karto. laakiin midda lagu haysto waxay tahay Gooriqaan ayaa 114 Aryan Khan bartay, ayadaa imtixaan ka qaaday. Gooriqaan waa qof iimaan leh, adigay iimaan kuu leedahay. marka shaaruqaan daymadaada intaasaa iga koobneed ani shakhsi ahaanteyda. inta dad macnaha commentigana ka soo hadlayo waa tegi kartiin, waa arki kartiin. wuxuu yiri wiilkayga maanta heer wuxuu taagan yahay, aktarada qaar waxaa la leeyahay kiponats, waxaa waaye macnaha aktarada ciyaalkooda, laakiin cunugayga lama dhihin aktarka cunugiisa. waxaa la yiri the big director Aryan Khan. aniga marka Badsha of Bollywood waan gudbiyuu yiri, father of Bollywood aan jooga, maadaama wiilkayga heerkaas uu taagan yahay. wuxuu yiri wiilkayga waxaan ku ammaanaa, ma hadal badna, waa howl badan yahay, ma jecla su'aalaha qaar inuu ka jawaabo. dabeecadaasna aniga ayuu iga keenay. aniga waxaan jeclahay hadalka inaan kala gooyo. xishmadana siduu dadka u xishmaynayo waa aniga. xishmad aaway Ali Khan, aawi dhibaatada loo geystay oo intuu Mareykanka soo baxay oo Indiya imaaday. aawi gabadha hadda qaylinayso dhahaysay aniga xataa mustaqbalkayga wuxuu ku baaba'ay Aryan Khan daba joogiisa. macnaha qofka bini'aadamka wuxuu raba ahaado, in ballanta amaba qowlka uu qaaday uu fuliyo ayaa saxan. dad badana macnaha inay xataa shaqooyinkooda uu ka soo reebay Aryan Khan, sida la sheegayo 12 qof way ka badan yihiin oo asaga u go'een, oo mise xataa shaqadii uu u ballan qaaday uuna siinin. uu yiri sanadka dambe Allahna gaarsiiyo. kan ma ahaya hadda dhalanayo, kiisa kale. horta aniga waxaan leeyahay dadka qaar aaday u fududaadaan, sababtoo ah Soomaalidu waxay ku yiraahdaan guriga ku jiro geed saaran looma qubo. qofkii Aryan Khan intuu shaqadiisa ka soo tagay Aryan Khan daba galay, kulley aniga kaas asaa ila gardaran, asaga dadka dhan ba ka liito.
aktarada qaar markuu u yeeray jawaabta ay siiyeen oo kale hadday dhiibi lahaayeen dadkaas okay ahayd. aktarada qaar waxay dhaheen adiga taad nagu wacayso waa shaqo, midda aan haynana waa shaqo, tan aan dhammaysano markaasaan isugu imaanaynaa. wuu xanaaqay, dacwada xataa wuxuu gaarsiiyey aabbihiisa. dadka aad leedahay waa adeeradaada garabkaagay taagan yihiin, sidaanay ii galeen. shaaruqaan naftirkiisa wuu garaystay, wuxuu yidhi hadday ku dhaheen ma ku imaanayna, may ku dhaheen maya shaqaan haysanaa markaan dhammaynaan ku imaanana waa saxaa la yidhi. sax ma ahan uu yidhi, sax ma ahan. aniga waktigaan u yeera waa wakti aniga jaamacnaa ee asaga bejkii uu lahay aan samaynayo. okay shaqadaasaa lagaaga soo tegaa, marka tanaa lagu imaanaa. adiga marka caqligaaga intuu aaday, gabar ahaatidaa, nin ahaatidaa, wiil ahaatidaa, saqiir ahaatidaa, caqliga saliimka ah ha shaqeeyo. shaqaad haysataa, qofaa kuu yeerayo, taasaa iska soo xumaynay, tanaa imaane, waa soo daahdayaa lagu leeyahay, shaqadaada qof kalaa loo dhiibay, taasna waa iska xumaysa, meeshana waa fadhisaa. ha shaqeeya caqliga. aniga kolley Aryan Khan ma eedeynayo, Aryan Khan ma eedeynayo, dadka u soo go-eenaan eedeynaa. Anil Kabuur wuxuu yidhi horta cunugu waa cunug shaqaysanayo, waa cunugayni, in aan waqti walba garab siina diyaaraan u nahay siday ahaataba. laakiin un aniga ahaan Anil Kabuur waxaan leeyahay wiilka shaqadiisa ha ku daro muddo isbuuca, dadku u baahan yahay oo adeeradiisa ah oo asaga aana xumayn karin, in muddo isbuuca uu fariin u diro. adeer miyaa, habar yaray miyaa, eedda miyaa ahaa, isbuucan dhammaadkiisa 7 maalmood aa haysataa, kadib waa kuu baahanahay. ballantaas waa lagu cisay karaa. laakiin taleefon inuu soo diro uu yiraahdo 2 saac la jooga, 4 saac aniga waa kuu baahanahay in aad meesha igu imaado wax aan kaa duubo, taas wax suurtagal ma ahan. wiilka marka wuu isla baxay, horta runta haddii la sheego wuu isla baxay. dad badan uu soo aruuriyey, dad badan uu soo shaaciyey sax oo dinsanaayeen, laakiin dad badan uu hoos u dhigoyaa. marka shaaruqan dadka badi waxay ku haystaan xaaskaaga qur'aan ma taqaanaa. horta markay wiilkeeda ay baraysay ayada ma taqaanaa. shaaruqan naftirkiisa uu xanaaqay, dhowr qofood ayuu ku caayay commentiga, jawaabta uu bixiyey sida wariyaha uu sheegayo. marka aw shaaruqan wiilkaaga iyo adiga isku noqda, isku noqda. Kapil Sharma aa tusaale lagu soo qaatay, wuxuu u baahan yahay actor hebel before one month uu qofkii u wacaa, wuxuu weydiinaa firaaqooyinkiisa sida ay tahay. bishaas gudaheedoo dhan marka qofkaas shaqooyinkiisa inuu dhammaysto ishubayaa. shaqooyinkiisa markuu dhammaysto, haye firaaqa caadiya tahay soo ma ahaa, 2 beri martiqaad meesha lagu martiqaadaa. ninkan meesha lagu martiqaadaa. waxaa la yidhi Kapil Sharma macnaa qofka adiga markii oo 3 qofood 10 qofood ay yihiin waa soo wadaa meeshaan aad keentaa. wuxuu yidhi bini aadan waaye, wax walbaa dhici karo. beryan ku rabaa caawa diyaarad soo raac ama tariin soo raac ama baabuurkaaga soo qaada ama anaa baabuurkuu soo diraa. caqabooyin fara badanaa soo bixi karaan. qofkii aniga hadduu ii joogo, casuumaad aan u sameeyey uu ii joogo asaga iyo asxaabtiisa, waqtiga showgaa la gaari, ninkan uu soo qabaystay uu soo labistay, intuu ka soo gelooyaa. meel dheer bada laga keenooyo. Kapil Sharma muddo lagu ammaanay waa midkaas. horta cunugan iyo Kapil Sharma in lisbarbar dhigo aniga aadan uga xumaaday, sababtoo ah Kapil Sharma waa comedy international ah oo laga ciidsan yahay meel walbo. yaa ka maqan showgiisa aana imaanin, qiyaas ahaan adigan ku weydiiyey.
showgiisa cid ka maqnaatay male. JK Jan ala keeni adi JK Jan ala keeni dadka maqnaada male hadihin wa maxaa lagu gaaray marka maxaa lagu gaaray qofka 1 month before ala waca hadduu firaaqa leeyahay buu ala leeyahay maxaa ka qabtaa macnaha haddii oo anaga dalxiis aan ugu imaadid marka cunuga shaaruqan bilaash uu amaanooya bilaash uu leeyahay abartiisa barta quraanka si fiican loogu noqdo goori khan mataqaana quraanka. Wassalaamu calaykum warahmatullaah.